السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta dunida ka joogtaan oo walaalkana Daras Xasan Maxamed. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa runtii marka aad waalidkaaga ay dhintaan hase ahaatee awoowa uu ku soo koriyo, taasoo awoowaha aanad ka qaadanayn wax kastaba. Kani waa inan yar oo awoowii hayo hase ahaatee labadiisii waalid geeriyoodeen. Markii ay labadiisa waalid geeriyoodeen, mas'uuliyadda waxaa la wareegay awowga dhalay aabbaha, kaasoo mar kastaba waaniya ka yar hase ahaatee ka yari uuna waanadiisa iyo taladiisa uuna marnaba qaadan uu qaylo ugu daro odayguna uu yidhaahdo awowo hadda waxaana hayda waayo beritoole waan dhiman karayaa ee waxaad noqotaa qof fiican oo noloshiisa beddela. hase ahaatee kan yari dheg uma dhigo awowgii talooyinkan uu siinayo ee waxa uu ka raacaa ciyaalka iyo ciyaartan uu la ciyaarayo dadka dhallinyarada ah. sidoo kalena kama maqnaa dadka uu ku xidhay waa dad aana ku wanaagsanayn xagga cibaadada iyo xagga diinta, kuwaasoo xataa balwado gaarkood isticmaala mararka qaarkood, taasoo awowgani uu mar kastaba talo uu siiyo uuna ku yidhaahdo awowa sidaan isku dhaan. waayo odaygu waxa uu qaaday mas-uuliyadda kan yar maadaama uu dhintay wiilkiisii iyo gabadhii uu soddonka u ahaa ee dhashay ilmahan yar, taasoo aana wax waalida iyo cid kale aana lahayn oo isagoo keliya isaguna uu runtii da'ba yahay odayga awowga u ah ka yar, hase ahaatee la soo rafaaday soona koriyey ilmahan yar. waayo yaroo yar ayay dhinteen labadiisa waalid. odaygu isagoo guriga yimid ayaa xanuun ku soo booday dhulka ayuuna ku dhacay, taasoo xanuunkiisu uu ahaa mid aad u daran oo xataa dhakhtar la geeyey. dhakhtarradii waxay u sheegeen inuu yahay xanuunkiisu mid aad u daran oona la filayn inuu ka kaco xanuunka sidan oo kale ah. odaygii wuu la yaabay oo waxaa murug weyn ku abuurtay ilmahan yar eena cidna hayd meeshii uu ku dambayn lahaa haddii ay tiisiisa noqoto ama naftu ay ka baxdo, taasoo awowgu uu warwar badan ku abuurtay maadaama lagu yidhi xanuunkaagu waa mid aad u daran. wax yar kadib awowgii waxaa ka baxday naftii, hase ahaatee kii yaraa markii uu maqlay awowgii ayaa dhintay gurigii markuu yimid waxay ku noqotay amakaag iyo fajac, taasoo isaga laftirkiisii uu soo xasuustay waanooyinkii iyo talooyinkii uu siin jiray awowuhu, taasoo hadda uu cidla soo istaagay. ka yari maadaama uuna waalid kale lahayn, aabbihii hooyadiina ay geeriyoodeen, awowgii ku soo tiriya tacabeelena waanadiisa uu diidayna ay xaqii ku timid oo isaguna uu geeriyooday, taasoo kii yaraa ku noqotay arrin aad u murugo badan maadaama uuna haysan dunidana uuna cidna ka eeganayn awowgiisii geeriyooday mooye. waayo qofku waxa uu dareemaa marka qofkiisu uu ka dheeraado waxa uu hayay. waayo mar kastaba waxaad isdhahdaa qofkani muxuu kaa dulqabanayaa, muxuu kuu waaninayaa, muxuu sidaa kuu leeyahay, laakiin maalinta aad dareemaysid waa maalinta uu kaa dheeraado qofku waaniyana iyo qof noloshaada kugu yidhaahda wax ka beddel aad weydo, markaa ayaad soo xasuusanaysaa inuu ahaa qof wanaagsan qofkaagu. muuqaalkan intaa ayaannu ku soo afmeeri doonaa. ilaahay haddii waalidiintaadii kuu daayay alxamdulilah dheh oo ka faa'iidayso waxyaabaha ama talooyinka ay ku siinayaan, waayo maalin unbay ku anfici doonaan talooyinka ay ku siinayaan waalidkaagu. hana ka qaadan wax xumaana labadaada waalid hadday nool yihiin, ilaahay ha kuu daayo, hadday dhinteenna alla subxaana wa tacaala naxariistii janno ha ka waraabiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.